Siyaha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta si rasmi ah u dhaqan geliyay xeerka saxaafadda Soomaaliya kaasi oo hore u saxiixay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo kulan lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay isla markaana lagu dhaqan geliyay xeerka saxaafadda Soomaaliya ugu horreynna waxaa madasha ka hadlay siyaha wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye aanu ka waramay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray xeerka saxaafadda warbaahinta Soomaaliyeed oo runtii ah warbaahin aad u ballaaran dalxa soo dhawow dalxa halays iyo kursi warbaahin aad u ballaaran industry qiimo badan ku fadhida maanta inaynu mar labaad sharci aynu yeelano farxad bay noo tahay waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda uga mahad celinaynaa inuu sharcigaas noo saxeexo annagoo golayaashii qaranka ee ka soo baaraandegayna aanu sidoo kale u mahad celinayna mudane ra'iisul wasaare sidaa la sheegay sharcigan sharci taariikh dheer leh ah weeye dhowr iyo 10 sano soo laga soo baaraandegayay shuruuc badan la soo barbar dhigay aad iyo aad hawl muhiim ah qaban doona ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay siyaha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar isagoo ka waramay xeerka saxaafadda Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabaha laga rabo saxafiyiinta Soomaaliya la tashiyaynu sameynay shirar baynu ka galnay ama ha noqoto guddi hoosaadka golaha ay khusayso ama ha noqoto bahda saxaafadda iyo gudiyada loo saaray marka maanta waxaynu diiwaangelintii iyo saxitaankii la sameeyay kadib aan taaganahay golayaashii inuu maray madaxweynuhu saxeexay dhaqangelinaya haddii sharcigii oo aasaaskii ah aynu haysano maxaa inala gudboon ayaa tuu muhiimsan ay maanta tahay dhaqan ahaan haddaan Soomaali nahay islaam ahaan haddaan dad muslimiin nahay iyo sharci ahaan haddii qaanuunkii in kala hagaayay uu yaalo waa marka koowaad sheekhi aayadaha quraanka inoo akhriyay ayaa ka hadlay waajibka qofka muslimka ah saaran qaayada quraan inoo akhriyay inoo fasiray ahadiis inoo akhriyay qulu qawlan sadiida hadal wanaagsan hadiyo jeer dhaha waxa mardhow qofka markuu ay tiisa gaadho la isku qabanaya waxa weeyaan waxa labada carab labada ibood afka iyo meelaha kale oo xadiisku sidoo sheegayo lagu ciqaabi doono marka qof walba mas'uuliyad baa saaran dad islaam ah nahay mas'uuliyadda islaamnimada ku saaran horta ku xisaabtan كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته markasta meel kasta iyo waqti kasta badda Aston 4 TV ka soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda Aston 4 TV soo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo soo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda Aston 4 TV waa weelka waxa aad tabayso